markale subax wanaagsan waa sabti taariikhdu ay ku beegan tahay 14 bisha 9 September sanada 2019 warkaasi oo fitan saaka waxa la diyaara Xawluul Cabdulle Cubayd waa mahadsan tahay warsoo saaraheena saake Maxamed Cali bismillaahir rahmaanir rahiim subax wanaagsan warkii oo faahfaahsan maamulka Jubbaland ayaa sheegay inay wadaan baaritaano lagu soo qabanayo dadkii ka dambeeyay dhaawac loo geystay gudoomiyaha baarlamaanka garabka isbedel doonka dhinaca kale xildhibaan Cabdirashiid Xidig ayaa weerarkii xalay lagu dhaawacay gudoomiyaha baarlamaanka garabka isbedel doonka waxa uu la xiriiriyay khudbad uu jeediyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Maxamed Ibrahim ayaa warkan inoo faahfaahinaya kadib markii xalay koox hubaysan ay Kismaayo ku dhaawaceen gudoomiyihii garabka la magac baxay isbedel doonka Jubbaland Axmed Jaamac Qalyare ayaa maamulka Jubbaland waxa ay sheegeen inay wadaan baadi goobka ragii ka dambeeyay falkaasi afayeenka laamaha ammaanka Jubbaland Cabdinuur Ibraahim Xuseen oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada ammaanka Jubbaland ay wadaan baaritaano ay ku soo qabanayaan raga ka dambeeyay falkii lagu dhaawacay gudoomiyaha isbedel doonka Jubbaland Axmed Jaamac Qalyare afayeenka ayaa inta ku daray hadalkiisa inaysan suurtagal ahayn in kooxo hubaysan oo dil ama dhaawac ka geystay gudaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ay baxsadaan hayeeshee haddana uu socdo dadaalada gacanta loogu soo dhigayo ragii geystay dhaawaca gudoomiyaha Qalyare bacdul maqribkii oo kamid ah odayaasha magaalada Kismaayo ama muwaadiniinta reer Jubbaland ayaa waxa kooxo dhagar qabiyaal waxay ku dhaawaceen magaalada gudaheeda asagoo maraya meel xaafadaha magaalada xaafad kamid ah alxamdulillah Axmed Jaamac uu fiican yahay caafimaadkiisa waxa lagu dabiibayaa ama lagu daryeelayaa isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo xaaladiisa caafimaadna aad bay u fiican tahay waana ka soo raynaysaa dhagar qabiyaashii geystay falkaana waxa ku daba taagan ama insha Allah bidna kariim aan rajaynayaa in ay gacan bir ku soo qabtaan ciidamada amniga ee dawladda goboleedka Jubbaland muwaadiniinta marka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer Jubbaland waxaan rabaa inaan u cadeeyo odayga inuu fiican yahay Axmed Jaamac xaaladiisa caafimaad aad u fiican tahay aan rajaynaa insha Allah bidna kariim ilaahay inuu u boogadhayo caafimaad taam ah uu siiyo cidii dhagarta ka dambeysay dhiigga shacabka Soomaaliyeed mar walba xalaalsato aan ognahay shacabka Soomaaliyeed dadkiisa birmageedada mar walba inay beegsadaan ama ay si xaq darre ku laayaan insha Allah waxaan rajaynaa in soo qabto sharcigana loo keenay haduu ilaahay idmo dhanka kale xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo goor hore sheegtay in loo doortay madaxweynaha Jubbaland isla markaana kamid ah garabka isbedel doonka Jubbaland la magac baxay ayaa ku sheegay qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa Facebook in la garanayo cid ka dambaysa dhaawaca gudoomiye Axmed Qalyare dhawaana cadaalad la horkeeni doono xilli aan fogeyna ciidamo ka wada tirsan militariga Soomaaliya ayaa saaka waxay isku rasaaseeyeen magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada uu maran soo kala dhex galay warsoo saaraheena Maxamed Cali Maxamed ayaa ka waramaya wararka saaka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa sheegaya in waa barigii hore ee saaka magaaladaasi ee israasaaseen saacado kooban qaadatay ku dhaxmartay ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya qaybtooda danab ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ciidamadan ayaa la sheegay in muddo ay ku dagaalamayeen gudaha magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug inkastoo ilaa iyo haatan dadka deegaanka aysan sheegin wax khasaaro oo ka dhashay maadaama dagaalka saakadii hore uu dhacay qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa radio kulmiye u sheegay inay ku soo baraarugeen rasaas dhaxmaraysa ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb dhinaca kale howlgal ay ciidamada nabad sugidda qaybtooda jooga Galmudug ay ka sameeyeen xalay Dhuusamareeb ayaa gacanta waxay ku soo dhigeen daraasiin dhalooyin qamriya iyo sidoo kale ruux la sheegay inuu ahaa milkiilaha maandooriyahaasi mas'uuliyiinta maamulka degmada Dhuusamareeb iyo saraakiisha laamaha amniga degmada ma jirto wax war ka soo baxay oo ku aadan isku dhac dhaxmaray ciidamada iyo howlgalkan ka dhacay Dhuusamareeb ee lagu soo qabtay maandooriyahaasi tan iyo wixii ka dambeeyay markii gacan ku haynta magaalada Dhuusamareeb amnigeeda laga wareejiyay ahlusunna way la wareegeen ciidamada dawladda iyo kuwa amisom waa markii labaad oo ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo la geeyay Dhuusamareeb ay ku dagaalamaan gudaha magaaladaasi hore ayaa sidaan kale waxa magaalada ugu dhex dagaalamay ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya iyo sidoo kale booliiska Soomaaliya laga qaaday magaalada Muqdisho waa mahadsan tahay Maxamed ammaanka magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa aad loo adkeeyay iyadoo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu ku wajahan yahay magaaladaas waxa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu soo gabagabeeyay socdaal uu ku maray deegaanada gobolada Baay iyo Bakool Farxaan Maxamed Xuseen ciidamada militariga gaar ahaan kuwa 14 Oktoobar ayaa adkeeyay ammaanka magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose
xilli uu maanta ku wajahan yahay magaaladaasi ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo soo gabagabeeyay safarkii uu ku joogay deegaanada Baay Bakool oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. gudaha magaalada Marke ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa laga dareemayaa soo dhaweynta ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyadoo magaaladaasi ay shalay gaareen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. duleedka magaalada Marka ayaa waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab iyadoo dagaalkaasi Al-Shabaab lagu gaarsiiyay khasaare badan sida dawladda Soomaaliya ay sheegtay. isla markaana gudaha magaalada Marka lagu soo bandhigay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab oo lagu dilay dagaalkaasi. soo dhaweynta ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta laga dareemayaa gudaha magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo lagu arkayo wadooyinka magaaladaasi ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo sugaya ammaanka magaaladaasi iyadoo shacabku ay ku sugayaan wadooyinka ra-iisul wasaaraha Khayre si ay halkaasi ugu soo dhaweeyaan. shacabka magaalada Beledweyne ku nool ayaa walaac waxay ka muujiyeen dhac koox burcad ah ay u geystaan xilliyada habeenkii iyadoo arintan ay tahay cabashadeeda mid iska soo daba dhacaysa. Ismaan Aadan Carays ayaa warkan Beledweyne ka soo diray. qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan caafada Kooshin ee magaalada Beledweyne ayaa ka cabanaya dhac iyo qaadashada moobilada ee ku soo kordhay caafada xilliyada habeenkii ee dhalinyaro ku hubaysan bistoolado ay dhac u geysanayaan dhalinyarada xilliyada habeenkii iyo odayaasha ka yimaada masaajida taasoo uu sheegay in dhibaato xoog leh ay kala kulmaan keentayna in caafada xilliyada hore dadku ay isaga hoydaan guryahooda. waa kan mid ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan caafada Kooshin gaar ahaan ku tiimbo la hadlay warbaahinta keenan xafiiska ay ku leedahay magaalada Beledweyne. meelo dhibaato fara badan xaafada ka jirto ay ku hayaan kuwa tuuga oo xaafada away dhalinyarada telefoonada ka dhacayo kuwaasoo qoryo ku qabanayo telefoonada ay haasan ka qaadanayo dad waa lagu dilay dad waa lagu dhaawacay ilaa hadda laakiin dhimasho ma jirto laakiin dad dil waa jiraan telefoonada waa ka arursanaa xaafada maqribkii ilaa iyo intuu dhaxaysa 3 saac iyo ku jira xaafada marka telefoonada dhalinyarada way ka dhameeyeen midaasan ka caawinayna maamulka iyo wax la xiriir wali ma arag waxa dawladda sheeganaya ayaa laga doonayaa in dadka shacabka ay ka qabtaan maadaama ay dawlad gashay yihiin wax noo yimidna ma arkin waxana dhacaya dhawaan ayay ahayd markiisi ayaa xilka taliyaha qaybta gobolka Hiiraan Korneyl Cali Dhuuc maadaama uu sheegay in dhibaatooyinka soo gaaraya shacabka ay sabab u yihiin isticmaalka maandooriyaasha qamriga iyo cashada ay ku soo badanayaan magaalada. wuxuuna sheegay Korneyl Cali Dhuuc in dhawaan howlgalo laga sameyn doono gudaha magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan si amniga loo xaqiijiyo. Ismaan Aadan Carays warbaahinta keenan Beledweyne. ciidamada dawladda iyo kuwa Hirshabeelle ayaa xalay baaritaano dad badan lagu qabtay waxay ka sameeyeen magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. amarkan lagu sameeyay howlgalka waxaa bixiyay saraakiisha laamaha ammaanka maamulka kadib markii magaalada ay ku kordheen dilalka iyo dhaca. Bashiir Cali Daahir wariyaha keenan ee Jowhar ayaa warkan inoo soo diray. howlgaladan ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa booliska Hirshabeelle ay ka fulinayaan xaafadaha magaalada Jowhar xilliyada habeenkii ayaa waxay yihiin kuwa looga hortagayo kooxo xilliyada habeenkii dhac ka geysta xaafadaha magaalada Jowhar. ciidamada ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay soo qabqabteen dad lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen falalka ammaan darro ee ka dhacay xaafadaha magaalada Jowhar ayaa la dhigay saldhigga magaalada Jowhar kaasoo baaritaan lagu hayo. saraakiisha ciidamada booliska Hirshabeelle ay tilmaameen inay haatan ku daba jiraan cid walba amniga qalqal gelinayso gudaha magaalada Jowhar. magaalada Jowhar ee xarun u ah dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa haatan waxaa ku soo kordhay magaalada ciidamo boolis oo dheeraad ah kuwaasoo tababar dhawaan uga soo gabagabay xero ku taala garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar kuwaasoo xoojinayo ciidamadii booliska hore ugu sugnaa magaalada Jowhar oo wax ka wada howlgallada xaqiijinta amniga oo xilliyada habeenkii roonda ahaan ciidamada ay ku maraan xaafadaha magaalada Jowhar. Bashiir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar. warka subaxii Radio Kulmiye ayaad dhageysanaysaan. duufaan cusub ayaa khatar gelinaysa dalka jasiiradaha ee Bahamas 2 toddobaad kadib markii ay duufaantii Torian burburisay qaybo jasiiradaha ka mid ah. duufaanta oo la filayo in heerkeedu isbedelo 2 maalmood gudahood ayaa roob awood leh iyo dabeelo ku qaabishay jasiiradahan oo weli la daalaadhacaya dhaawacii hore.
ku dhawaad 1,300 qof ayaa ku maqan duufaantii Dorian halka 15,000 oo qof ay u baahan yihiin gabaad raashin iyo weliba daryeel caafimaad. saraakiishu waxa ay ka digeen in daadad hor leh oo ay duufaantu sababto ay hakad gelin karaan dadaalada gurmadka iyo gargaarka. Carl Smith oo ah madaxa hay-adda maareynta iyo masiibooyinka ayaa sheegay in duufaantan ay hoos u dhigi karto dadaalada lagu baadigoobayo dadka maqan isla markaana la doonayay in gargaar loogu geeyo jasiiradaha iyo Grand Bahama iyo Arbaco oo ah meelaha ugu daran oo ay saameynta ku reebtay duufaantii Dorian. ugu dambeyntii ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay in ka badan 3,500 qofna waxaa laga daadgureeyay guryahooda kadib markii daadad harqiyeen koonfur bari dalka Spain. webiyada ayaa karkaarada jabsaday waxayna ku fataheen magaalooyinka Valencia, Murcia iyo bariga Andalusia halkaasoo ah meelaha laga diiwaan geliyay in uu ka da'ay roobka ugu daran. gawaari badan ayuu daad kula tagay 3 qof ayaana baabuurtooda ku dhintay kadib markii ay biyuhu ugu galeen gawaaridii ay saarnaayeen. roob badan ayaa ka da'aya dalka Spain waxayna taasi keentay in qalqal uu ku abuurmo wadooyinka garoomada diyaaradaha iyo meelaha tareenada laga raaco waxaana go'doonsan rakaab badan. kumanaan markaasi ciidanka booliiska ah iyo shaqaalaha dabdamiska ayaa la geeyay goobaha uu gurmadku ka socdo. meelaha qaarna waxaa la adeegsanayaa doomo iyo diyaaradaha qubaatiga u kaca. warkay subaxii keeneen waa naga inta cidii u dhaafay radio kulmiye.com.